السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن ونكسن داوديال إذا لهانتين بميل والبعض دون كوغا سجنتين. halkani waa Daafur TV kusoo dhawaada wararkeena. Qodobada wararkeena ugu door korona waxaa kamid ah madaxweynaha Soomaaliya oo safar degdeg ah ku tagay dalka Itoobiya. ciidamo ka wada tirsan dawladda federaalka Soomaaliya isku horfadhiya xaafadda loo yaqaan jaamacadaha ee magaalada Muqdisho iyo Mukhtaar Roobow oo la qorsheenaya in dalka laga masaafuriyo. intaasi waxay ahaayeen qodobada wararkeena ugu door koron haatan asigiyo fidsan. madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo wafdigiisa ee ku sugnaa dalka Sacuudiga ayaa ka degay magaalada Addis Ababa ee caasimadda waddanka Itoobiya. safarka madaxweynaha uu ku tagay dalka Itoobiya ayaan horey loo sii shaacinin, balse tagitaankiisa Addis Ababa ee dalka Itoobiya ayaa ku soo aadeysay iyadoo ra'iisul wasaaraha Itoobiya uu sheegay inuu ka shaqeynayo xalinta khilaafka Soomaaliya iyo Kenya. warkooban oo lagu daabacay bogga Twitter-ka ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya ayaa lagu sheegay in labada dhinac ay ka wada hadleen xiriirka labada dal, iskaashi dhaqaale iyo qodobo kale. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sidoo kale intuu ku sugnaa xafiiska ra'iisul wasaaraha Itoobiya waxa uu ka qayb galay dhir lagu beerayay gudaha dhismaha xafiiska ra'iisul wasaaraha Itoobiya. waxaa kaloo kulanka lagu soo qaaday si labada dal ay isaga kaashan lahaayeen xasiloonida ammaanka iyo wada shaqeynta gobolka. dhanka kale wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in laga cabsi qabo inuu dagaal culus ka dhex qarxo ciidamada dawladda iyo dadka deegaanka jaamacadaha. sida ay wararku ugu soo gaarayaan wasaaradda waxbarashada ayaa dadka degan xaafadda jaamacadaha oo u dhow Seebiyana u sheegtay inay isaga guuraan halkaasi muddo 7 maalin ah oo ku ekeed shalay. dadka deegaanka oo badan askar ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya iyo ilmo ay dhaleen ayaa arintaas ka hor yimid, waxayna xaafadda jaamacadaha noqotay mid ay soo buux dhaafiyeen ciidamo fara badan oo sheegay inay la dagaalamayaan cid kasta oo isku dayda inay soo weeraraan. taliyaha hogaamiye ciidamada halkaas ku sugan ayaa sheegay inuu ka soo baxay furimaha dagaalka Al-Shabaab kadib markii ay maqleen in ciidamo ka tirsan dawladda Soomaaliya ay rabaan ka saaraan xaafadaha jaamac oo ah meel ay degan dad aad u fara badan. taliyaha ayaa sheegay in dhiigooda huri doonaan siday u badbaadin lahaayeen dadka halkaasi degan oo u badan ilmo ay dhaleen askarta dawladda ee safka hore kaga jira dagaalka lagula jiro xarakada Al-Shabaab. sida uu sheegay taliyaha oo la hadlay warbaahinta Daafur TV waxa uu yiri ma aqbali karno in la soo weeraro ciidamo ka tirsan dawladda Soomaaliya annagoo difaaca hore ugu maqan waxaana u diyaar garoobaynaa dagaal culus oo xitaa qaadan kara bilooyin, ayuu yiri taliyaha oo diiday in magaciisa loo isticmaalo warbaahinta. ciidamada halkaas ku sugan ayaa qiyaas ahaan gaaraya ilaa 200 oo askari oo ku hubeysan qaybaha kala duwan ee hubka. ugu dambeyn maalmihii dambe waxaa meel sare gaaray qorshaha lagu doonayo in lagu sii daayo Mukhtaar Roobow Cali Abu Mansuur, kaasoo la sheegay in dawladdu ay diidan tahay. Roobow ayaa waxgaradka iyo siyaasiyiinta ku hayba waxay markaan bilaabeen inay geed dheer iyo mid gaaban u fuulaan soo deyntiisa. qadiyadan waxay khilaaf ka dhex abuurtay gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed Qaadir Shariif Sheekhouna Mayow iyo madaxweyne Cabdicasiis Lafta Gareen. warar ayaa sheegaya in waxgaradka iyo malaqyada isku haybta yihiin Roobow ay ka niyad jabeen sii deynta, xitaa madaxweyne Farmaajo hortageen dhowr mar. ila lagu kalsoon yahay ayaa Daafur TV u sheegay in haddii la soo daayo Mukhtaar Roobow laga yaabo in laga masaafuriyo gudaha Soomaaliya, balse la maldahayo oo la leeyahay magangeliyo ayaan looga diyaariyay dal Carbeed. waad ku mahadsantihiin daawashada wararkeena iyo warbixinadeena. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkeena subscribe lana wadaag asxaabtaada.